Maaraya ku-xigeenka wakaaladda biyaha ee Hargeysa Cismaan Cabdullaahi Hirid ayaa ka hadlay halka uu marayo mashruuci biyo ballaadhinta ee Hargeysa isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yiri sida tan imika waa mashruuc waqti dheer soo qaatay oo in badan warkiisu u socday imika muddo waxa ahna laga bilaabo sanadkii hore hawshiisu si fiican bay u socotay waxyaabo qalab u baahnaa wala keenay oo yaaliin waxyaabo yar oo imika doono mooyaan inta badan way taalaa beebkana soo socda meel wanaagsan soo socda magaalada gudaheeda dushii dhexdeeda ayuu soo gaaray inkastoo meelo dhexda ah iyo meelo xagga dambe ah harsan ay jireen kaasi waxaan ku rajaynayaa xilligii lagu talagalay inaan wax dib uga dhicin oo September meelaha ahaa hawsha qolada wadana si fiican loo wadaano hawsha si fiican bay u socotaa waxyaabo caqabadaha oo kale xagga isaga laftiisa way jiraan oo dhulka laftiisa sidii la filayay aan ahayno dhulka intii jilicsanaa iyo intii baahku si fiican loo qodi karay waa la soo qoday imika meel halkan oo magaalada dusheeda barkada agteeda xabaalaskooda ayuu marayaa beebkii meeshana waxa weeyaan way adkaatay aad iyo aad oo adkaato meel adag oo cagafyada iyo qalabka lagu talagalay aan wax badan ka goynahayn oo maalintii waxa laga yaabaa inay mid in yar oo kooban ay qoto cagaftu oo markii hore Chinese xilligii uu joogayna ninkii joogay baa garanaya miina iyo hab u qarxin jiro miinada iyo inaan kuma jiraan oo wax lagu qarxiyo ma jiraan marka waxa la adeegsadaa iskaafeetariyo qalab casri ah ayaa la adeegsadaa laakiin qoditaankoodu wuxuu qaadanayaa meeshii loogu talagalay in maalin ka shaqeyso 10 casho meel ka shaqeyso ayaa laga yaabaa taana waxaan filayaa dhawaan laga gudbi doono dhul ballaaran maaha laakiin waa dhul adag marka taasina way socotaa hawsheedu dhawaanna way soo geli doonaa waqti dhow waxaan filaynaa in la bilaabo barkadihii laga sameeyay degmooyinka sida Axmed Dhagax Maxamuud Haybe degmada Gacan Libaax iyo Koodbuur barkadaha laga sameeyay biyaha qaybintana iyagana waxaan filaynaa in waqti dhow bilaabmaan qoladii Jarmalka ay wadeen KFW taasina waxaan filaynaa waqti dhow tandarkooda waa lagu marayaa waa in la bixiyaa filaynaa laakiin dhawaan kulleeyna hawshaas la bilaabi doono isku soo wada duubo mashruucani ayaa ah mid aad loo saadaalinayay Cabdikariin Maxamed Somaliland Space Channel Hargeysa.